shirweynaha dhalinyarada Puntland waxaa ka soo qayb galay ergooyin ka kala socday dhalinyarada haldoorka ee sagaalka gobol ee Puntland waxaana furay shirweynahani madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda Puntland iyo ururada taageerada arrimaha horumarinta dhalinyarada. wasiirka dhalinyarada ciyaaraha shaqada iyo shaqaalaha Puntland Jaamac Faarax Muuse oo ka hadlayay furitaankii shirweynahani ayaa tilmaamay in wasaaradoodu ay door muhiim ah siisay horumarinta dhalinyarada iyadoo ka duuleysa siyaasadda jahaynta dhalinyarada Puntland. dhalinyarada halkan fadhida waa dhalinyaro muddo runtii loo baahnaa inay isu yimaadaan kana tashadaan aayahooda iyo xaaladaha dhalinyarada u gaarka ah ee Puntland soona saaraan go'aamo iyo communique muhiim u ah horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan Puntlandba. waxaan rajaynayaa shirkeenan maanta oo aad muhiim u ah inuu yahay mid ay indhaha ku hayaan guud ahaan dhalinyarada Puntland iyo kuwa Soomaaliyaba iyo dadweynaha reer Puntland oo dhan. waxaan rajaynayaa natiijooyinka halkan ka soo baxa iyo go'aamada halkan ka soo bixi doona inay noqdaan kuwa u qalma masiirka dhalinyarada Puntland. madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani oo ka soo jeediyay khudbad dheerayd furitaankii shirweynaha dhalinyarada Puntland ayaa tilmaamay inay muuqato isbeddel horumar leh oo ay horseed ka yihiin jiilka cusub ee dhalinyarada maanta kulana dardaarmay daayarta inay ka fogaadaan falalka lidyo kuwa amni darrada iyo dib u dhigga dalka. waxaa mararka qaarkood runtii dhibaato ah dhalinyaradii la rabay in la gardaadiyo ama la rabay in mustaqbalka loo saxo inay mararka qaarkood naftooda caqabad ku noqdaan deganaanshaha bulshadooda caqabad ku noqdaan iyagu noqdaan kuwa crime-ka ama falalka guracan ee hadda jira hormuudka u noqda. hadday lahaan lahayd falal argagixiso, hadday ahaan lahayd mukhaadaraadka iyo waxa ka dhasha, hadday ahaan lahayd kuwa horuya colaadaha qabiilka, hadday ahaan lahaayeen kuwa ka hor yimaada dowladnimada iyo horumarkeeda, hadday ahaan lahaayeen kuwa meel walba oo markaas ka jiro qalalaasa ama faldambiyeedyo iyagoo hormuudka u ah. runtii aad baan uga xumahay in ay saas noqdaan, laakiin haddana waxa weeye waa maraaxil la marayo. waxaan u baahannahay marka in kale oo intiinaan ah iyo inta inila mid ah oo arrimahaas gacanta qabta. Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.